qarax miino oo baraqnimadii maanta ka dhacay deegaanka Basra oo kala qaybiyay gobolada Shabeellooyinka ayuu ku geeriyooday Allah u naxariistay General Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole oo ahaa taliyihii ciidanka booliska ee qaybta gobolka Banaadir. General Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole 12 Abriil 2021 ayuu taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed si rasmi ah ugu magacaabay inuu noqdo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir kadib markii xilka laga qaaday General Saadaq Cumar Xasan Saadaq John oo xilligaas xilka looga qaaday kadib markii uu ku yimid muddo kororsigii madaxweyne Farmaajo. Farxaan Qaroole ayaa magacaabistiisa ka hor ahaa taliyaha ciidanka gaarka ah ee Haramcad oo ah qayb ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya. dad badan waxa ay ku tilmaamaan inuu ka mid ahaa saraakiisha ugu firfircoon ee ciidanka booliska Soomaaliya marka loo eego shaqooyinka iyo howlgalladii uu hogaaminayay ee uu ka soo muuqday. bishii Janaayo ee sanadkan 2022 aynu ku guda jirno ayaa loo dilacsiiyay darajada generaalnimo. howlgalla lagu soo afjarayo weerar iyo qaraxyo lagu soo qaaday hoteelo iyo xarumo dawladeed ayuu sidoo kale ka mid ahaa saraakiishii ka soo muuqday ee hogaaminayay. howlgal ka dhacay deegaanka Basra kadib ayaa waxaa kolonyo gaadiid ah oo uu la socday qarax miino lagula eegtay deegaanka Basra ee kala qaybiyay gobolada Shabeellooyinka. sida la xaqiijinay waxaa halkaas ku geeriyooday isaga iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka